dalka Kenya waxaa ka dhacday dhacdo ugub ah oo aad ay ula yaabeen dadka halkaasi ku nool. Ken Mwengi waa 25 jir Kenyan ah waxa uu la kulmay saaxiibkiis Toma Ketahuyu oo isaguna 27 jir ah waxayna ahaan jireen saaxiibo aad isugu dhow markii ay da'da 16 iyo 17 jirka kala ahaayeen. Waxay u dareeri jireen hal iskuul laakiin kala fasal ayay ahaayeen. Dib ayay u kulmeen wayna isjeclaadeen kadibna way isguursadeen. waa dhacdo aad u yaab badan oo dadka Kenya degani ay la yaabihiin. Haddaba mar uu booqday madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama dalka Kenya waxa uu halkaasi u tagay in uu dhiirigeliyo ragga isku hawooda, balse fikirkaasi waxa aad uga hor yimid kala carooday madaxweynaha dalka Kenya oo sheegay in Kenya u baahan tahay howlo kale oo laga caawiyo balse xilligani aanan loo baahnayn mashruuca noocaasi ah. dhacdadani aad u fool xun ayaa dalka Kenya aad loogu hadalhayaa. dalka Kenya waxaa ku nool muslimiin aad u fara badan kana mid ah baarlamaanka iyo golaha wasiirada dalka Kenya. haddaba lama oga arrintan siday u hadli doonaan, balse geeska Afrika waa dhacdadii ugu horeysay oo aad loogu hadalhayo. haddaba waxaan halkan kala socon doontaa dhacdooyinka la yaabka leh Saxafi Films oo idin soo gudbin doona had iyo jeer.